bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa 2020 waa habeen ay jimca sii baxayso sabti soo galayo xanuunkii coronavirus oo soo gaaray dalalka Afrika gaar ahaan geeska Afrika qaasatan wadamada dariska la ah Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay 3 kiis isla markaasina maareen weysay ogaan weysay dadkaasi waxa ay qabaan loona qaaday wadamada dibadda ka ah Soomaaliya hadama waa wadamada halkees loo qaaday dadkaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan iyo suurtagalnimada in qaadka Soomaaliya Kenya uga yimaado in uu si daran u faafiyo xanuunkaasi barnaamijka qodobkaas ayaan ku falanqayn doonaa balse inta aanan barnaamijka u guda galin saaxiibayaal halkani waa Zobe Media Group hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelka ha hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee xogaha aan baahino aynu ku horeeyne dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay 3 kiis oo ay gacanta ku dhigeen in ay maareen waayeen isla markaasina ay u gudbiyeen wadamada dibadda ka ah Soomaaliya si loo ogaado dadkaasi xanuunka ay qabaan in uu yahay coronavirus iyo in kale haddaba wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo ku hadlaysa ayaa sida tan tiri saambalada waa la dirayaa oo laguma sameeyo Soomaaliya wadamada Afrikaanka intooda badan ma sameeyaan meelaha loo dira laakiin waxaan u jeednaa maalin walba waxa laga cabiraa qandhada waxa laga qaadaa analysis-ka wax hadda na tusaayo qofka inuu caabuq qabo ma jirin waa la socdaa taqaatiir la socda waxaan leenahay unit ka shaqeeya airportka labka intii karaankeena tabarta ah waa lagu dadaalaa waana daba socda ilaahina waxaan ka baryeynaa inuu san noo soo gelin dalka Kenya waxa soo gaaray cudurkii coronavirus waxa laga helay hal kiis waa inta la xaqiijiyay haddaba dad badan baa isweydiinaya saameynta ay Kenya ku yeelan karto Soomaaliya marka laga hadlayo faafinta cudurkaasi iyo sidoo ugu gudbi karo Soomaaliya dadku inta badan waxyaabaha ay ku micnaayeen oo in ay ku gudbi karo si fududna ugu faafi karo Soomaaliya oo waliba sida Kenya ka daran ugu faafi karo ayaa waxa lagu micnaayay qaadka Soomaaliya uga yimaada Kenya kaasoo sababi kara in dad fara badan ee Soomaali ah uu ku dhaco maadaama aysan Soomaaliya haysanin wax lagu baari karo ama baaritaan si sax ah u sheegaya cudurkaasi waxa la leeyahay in ka badan 20 diyaaradood ayaa Soomaaliya keenta qaadka Kenya uga yimaada haddaba saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa dad badan ayaa isweydiinaya maadaama si daran ama waali ah ay Soomaalidu u isticmaalaan qaadka waxaana la leeyahay waa adka doonta si loo xakameeyo hadii uu Soomaaliya soo gaaro sababtuna waxa ay tahay wadanka China oo aan ognahay heerka uu ka gaaray dhanka caafimaadka in ay ilaa hadda u tabar iyo taag la yihiin oo ay xakameyn la yihiin faafitaanka cudurkaasi China iska dhaaf in ay dunidii kala xitaa u gudbinayaan muwaadiniinta Chinese-ka ah oo ay dunidii dhanba takoor ka noqdeen China dadaalada ay sameysay waxa kamid ah in isbitaal aad iyo aad u weyn ay u dhistay oo intaas oo 100 kiiloomitir ah sidoo kale waxyaabaha China ay sameysay oo dadaalada ay sameysay waxa kamid ah in ay sameeyeen application lagu xareeyo dadka qaba cudurkaasi dadka looga shakisan yahay daatadooda in lagu xareeyo isla markaasina qofka muwaadinka ah Chinese-ka ah uu si fudud ku heli karo qofka cudurkaas looga shakisay in uu u soo dhawaaday in kale oo application-kaasi waxa uu sheegaya taleefankaada ayaa qaylinaya oo waxa uu sheegaya in qof xanuunkaas looga shakisan yahay uu ku dhow yahay ama meel agagaarkaada ah uu marayo taasoo keenaysa dadaal ama foojignaan dheeri ah oo qofkaasi in uu meeshaas isaga fakado ama ka cararo ka fogaado China oo dadaal intaas la eg sameysay ilaa hadda way xakameyn laadahay maxaad u maleynaysaa Soomaaliya iska tabar yar oo xitaa aan haysan qalabkii lagu ogaanayay in uu qofkaas qabo iyo in uu san qabin arinta kale ee xusida mudan waxa ay tahay in Somaliland guud ahaanba ay jartay joojisay qaadkii uga imaan jiray dalka Ethiopia maadaama ay Ethiopia kamid tahay dalalka laga helo xanuunkan wixii ku soo kordha Zobe Media Group ayaad ka daawan doontaan waad ku mahadsan tahay daawashada la socoshada iyo barnaamijyadeena